waxay ahayd cimilo gabi ahaanba cajiib ah ma jirin wax huur ah cirkana waxa uu ahaa mid aan daruur lahayn qiiq ayaa ka baxaya dhismaha diyaarad ayaa sida muuqato ku dhacday xarunta ganacsiga adduunka ee New York waxaan ka soo gudubnay maalin qurux badan jawigana waa uu deganaa laakiin hal mar ayay wax walba isbedeleen 11 September 2001 waxaa Mareykanka lagu qaaday weerarkii ugu xumaa taariikhda Mareykanka waxaan ka sheekeynaynaa 12 saacadood ee ugu horeysay ee dhacdada weerarka waxaan uga sheekeynaynaa qaab aysan weligeed dunida arkin Andy Card ayaa yimid waxa uu ii sheegay in wadanka la soo weeraray isla markaasna waxaan indhaha ku hayaa cunug yar oo wax akhrinaya Idil Mazel ayaa igu yiri madaxweynaha waa inaan meesha ka dhaqaajinaa sababtoo ah wuxuu noqon karaa bartilmaameed telefoon ayaa isoo wacay wuxuu igu yiri Angel ayaa ku xigay Angel wuxuu ahaa eray afgarasho oo laga wado Air Force 1 oo ah diyaaradda madaxweynaha waxaan ka cabsi qabnay inuu qof ogaado meesha uu ku sugan yahay madaxweynaha kadibna uu weeraro diyaaradda Air Force 1 diyaarad kasta waxa loo isticmaalay gantaal wax lagu garaaco aan ku fakarnay in bartilmaameedyada mid kamid ah uu noqon karo aqal diyaaradaha hawada ku jira waa inay u soo degaan sida ugu dhaqsiyaha badan hooyaday ayaa telefoon iga soo wacay waxay tiri waxaan joognaa banaanka Milwaukee waxaan ku yiri meela kaftamaysaa maxaa meesha ka shameynaysiin tiri adi soo ma abrin in diyaaradeena la soo dejiyo erayadeedii ugu dambeeyay ee ugu tiri waxay ahaayeen diyaaradeena waa la afduubtay kuwii qalbiga adkaa ee maalintaas meesha ku baaba'ay lama ilaabi doono waxaan sameynay wax walba aan awoodno inaan sameyno laakiin 3,000 oo qof ayaa ku dhimatay anaga oo dayeyna waa wax aad ku xanuujinaya isku soo wada duuba waxay dhacay dhammaantood waxa ay ku xiran yihiin albaabadaas xiran gadaashooda waxay qaadatay calaamadii la siiyay wiilkeeda geerida kadib waxayna siisay madaxweynaha waxay tiri qaado adiga waa inaad xasuusnaataa markasta waxaan maqlayay mid kamid ah shaqaalaha oo ku qaylinaya ka carar meesha naftaada la baxso waligeen dhibaato noocan oo kale aan ugu dhicin dhammaanteen waa dhaawacnay dhammaanteena waan argagaxnay diyaaradda koowaad waxa ahayd shil midda labaadna waxa ahayd weerar midda saddexaadna waxaan ku dhawaaqnay dagaal